سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. marka ugu horeysa guud ahaan dhammaan ummadda jamhuuriyadda reer Somaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay xaaladdu waa caadi wax weyn oo dhibaato ah oo laga warwaraa ma jiro hawlaha ka socda la saanoodna waa hawlo waqtigeeda iyo timekeeda qaadanaya waxaan u arkaa wax soo dhamaanaya waqtigii ilaahay ugu talagalay waxay noqotay inaanu hadallo ka nidhaahno gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif hadallo uu ka yidhi warbaahinta cabdirasaaq khaliif wuxuu caddaystay isaga oo turkiga jooga fikirkiisa siyaasiga ah ee uu kaga soo horjeeday jamhuuriyadda Somaliland isagoo caddeeyey in aanu wax shaqo ah iyo wax hawla ka qaban doonin shaqaqooyinka ka socda magaalada Laascaanood wuxuu mar labaad halkan u yimid magaalada Hargeysa wuxuu isku dayay in uu khiyaameeyo qarankan wuxuuna madaxweynaha ula tegay talooyin isagoo hore u diiday inuu waxba kala qabanayo madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya soo dhaweynaya garanaya qiyamka kursiga uu ku fadhiyo ayuu aqbalay oo la qaatay in uu Laascaanood tago oo shaqaqooyinka wax ka soo qabto waxaa hore ugu sugnaa golaha magaalada Laascaanood wasiirro fara badan oo ilaa 6 wasiir ah oo ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka xanaanada xoolaha aniga idin la hadlaya iyo wasiirro kale madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inuu markaa uu ka qayb noqdo xal u raadinta arrimaha lagu kala duwanaa madaxweynuhu wixii uu tala siin karay iyo wixii uu taakulayn siin karayba uu u soo dhameeyey markuu Laascaanood noogu yimid waxa uu noqday qofka keliya ee dhibtii meesha taalaysii laba jibaaray oo dhanka kale iska taagay hadday tahay facilities uu ku bixinayo xagga kale iyo warkii dawladda oo uu liigaraynayo iyo wixii aanu xal u aragno oo uu naga daba burburinayo ama cidda aanu la hadalnay wax ka duwan u sheegayo waxaa caddaatay inuu gaadhsiiyey ilaa hantidii ummadda reer Somaliland ee halkan looga soo dhiibay in uu u isticmaalay in uu dhanka kale shidaal iyo rasaas ugu diro waxaa cad taariikhdiisu inaanay ahayn annagoo madaxweynaha warkaa uu wax badan ka og yahay ayuu haddana mar labaad madaxweynaha yiri talan kula noqonaya madaxweynuhu iyadoo dad badan iyo ummad badan oo reer Somaliland ay arrintaa qayb ka ahaayeen haddana mar labaad buu la kulmay sidii si leeg ayuu madaxweynuhu tala iyo taakulaynba haddana soo siiyey muuminka laba jeer lagama wada qaniino baa leeyahay laakiin dadka iyo jagada uu hayo ayaa khasbayay in mar kasta maadaama uu ninka saddexaad ee qarankan ahaa in la dhagaysto iyo dad badan oo sharaf ku leh qarankan oo isaga iyo madaxweynaha dhex joogay taasina waxay keentay in madaxweynuhu mar labaad talo iyo taakulayn wixii uu hayo uu soo dhiibo kama uu hadhin ee halkiisii uu caadada u ahaa ayuu maray marar badan ayaanu haddaanu golaha wasiirada nahay uu noo sheegay xaalku meesha uu marayo isagu wararkii iyo waqtiyadii aanu shirka wada qaadanay marnaba wax daacad ah oo qaranka dan u ah dadka reer Laascaanood dan u ah dhexdooda kama uu shaqeeyo wuxuu ahaa shakhsiyad ay u caddahay meesha uu u socdo hagardaamo iyo dhibna ula jooga qaranka jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan markaanu ku sugnayn deegaanka Laascaanood hadalladiisii ugu dambaysay waxaa ka mid ahaa in uu dhammaan
ka soo hor jeestay wixii uu u dhaartay ee qarankan uu u dhaantay ummadda jamhuuriyadda somalilan ee uu u dhaartay inuu dhammaan ka soo wada hor jeestay meeshii laga rabay inuu xal keeno oo ninkii saddexaad ee deegaanka kursiga somalilan ugu sarreeya ay ahayd inuu dadka iyo dawladda dhexdhexaadiyo wuxuu la saftay dhan waxaana hadalladiisa ayaa markhaati idinka ah ee ma aha waxaan odhanaya ma aha markii ugu horraysay ee runtii uu waxaanoo kale ku kaco dawladdii siilaanyo madaxweynaha ka ahaa wuxuu ka mid ahaa raggii madaxweynaha golaha wasiirada ka dhigay raggii inqilaabay ee hoggaamiyey inay golihii wasiirada rag fara badani ay hal mar iscasilaan ma aha markii koowaad ee uu ka soo markii koowaad ee uu sidaasoo kale u inqilaabo qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuu caado u leeyahay qodobo fara badan oo ay ka mid tahay inuu ka mid ahaa raggii dawladihii federaalka wax ka soo dhisay oo ay ka mid tahay dawladdii sheekh shariif ilaa iyo eritereya ayuu tegey wuxuuna ka mid ahaa raggii ergada ahaa ee jabuuti joogay ee ergada sheekh shariif ka dhistay sheekh shariif noqday ee doortay isagoo markii horena ahaa kuwii eritereya tegey wuxuu hadimo aan loo aabba yeelin ku sameeyey ciidanka qaranka iyo khiyaamo qaran oo uu ka galay dadka iyo dalka somalilan wuxuu marar badan noo caddeeyey hadallo golaha wasiirada haddaanu nahay hadallo fara badan oo ah uu nooga warramayo xooga gallaascaanood ku dagaalamaya oo aan qaarkood aanan afka ka dhowrayno oo ay ka mid yihiin in uu jiro xoog ballaadhan oo al-shabaaba iyo argagixisaha oo ka dagaalamaya magaalada laascaanood iyo garaadada dhulbahante inay dhammaantood la wada xidhiidhayaan kana mid yihiin ay doonayaan dawladda federaalka waxaan isleeyahay ummadda reer somalilan waa dad walaalaa oo ehela wayna wada noolaan jiraan waana wada noolaan doonaan tiraba wakhti aad u fara badan oo aan la soo koobi karin ama 700 oo sannadood in ka badan ayaa dadkan ehel la ahaan doona qofka xumaan kaga taliya taariikhda ayaa qori doonta qofka wanaag kaga taliyana taariikhda ayaa qori doonta fikirka waa lagu kala duwanaan karaa dadkuna wax waa isweydiin karaa qofkuna wax idina wax waa taban kartaa waxaanu isku dannay golaha wasiirada ee deegaanka haddaanu nahay golaha wasiirada ee deegaanka tagay haddaanu nahay inaanu minimaysno garayno dhibta oo yarayno khasaare kasta oo halkaa ka dhacaya waxaa nooga markhaatiya dhimashooyinkii ugu horreeyey ee ciidanku iyo ku kala gaadha inaannu sida ay tahay uga howlgallay oo qof kasta qabiilkiisii iyo dadkiisii u yeedhnay oo aannu meel isla dhignay oo si fiican ugu heshiinay oo aannu qaadannay wax alla wixii culaysa iyo dhammaan magtii qofka waxaan ugu yeedhayaa cabdirasaaq khaliif in uu xilka si toosa isaga casilo qodobadii uu ku ahaa dhammaantood guddoomiyaha golaha wakiilada ee dastuurigaha wuu jebiyey waxaana golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ugu yeedhaya haddii uu ku dhawaaqi waayo iscasilaadiisa inay xilka ka qaadaan maadaama wax alla wixii uu ku ahaa xubinnimo iyo guddoomiyaha golaha wakiilada uu dastuuriyan jebiyey oo ay caddahay oo khudbaddiisu ay taallo inuu shalay yidhi waxaan raacsanahay SNC iyo 3 nin waxay raacaan waxay gooyaan iyo garaadada
wuxuu soo hadal qaaday oo uu yidhi laba nin aniga oo uu aabbahayna magac ku sheegay ina cambaashe iyo aniga jenaraal maxamed ina cambaashe iyo aniga oo uu yidhi sida nimankaa u shaqayn maayo marka ugu horraysa cabdirasaaq waanu isnaqaani isna neeras buu ahaa aniguna sarkaal sare oo ciidamada ka mida ayaan ahaa markaanu soomaaliya ahayn markaanu somalilan ahaynna wuxuu ahaa farmasi buu gedi jiray ku yaalla berbera aniguna ilaa 1991 qof figara oo siyaasiya oo somalilan taqaana oo shaqaynaya baan ahaa magaciisa somalilan waxaa ugu horraysay maalintii silaaya dawladda qabsatay aniguna markaa waxaan soo qabtay 4 jago oo heer qarana waxaan ahaa 2000kii iyo 90 ninkii hogaaminayey markii dastuurka loo codaynayey gobollada bari oo dhan inaa guddoomiye ka ah golaha wasiirada caynabaan fadhiyey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolahana islaani magaciisa ma aqoon farmasi buu gadayey haddaan aabbayaasha u imaado waxaan u malaynayaa inuu ku soo koray deegaanka aabbihii joogi jiray deegaanka taleex ee aan ka soo jeedo ama deegaamada aabbahay wuxuu ku dhintay isagoo reero kala dhex jooga oo kala maslaxad ka shaqaynaya isagoo caaqila oo odaya oo deegaankao dhan laga yaqaano aabbihii wuxuu u raaci jiray dhammaanka ama ayuu u raaci jiray oday reer taleex oo ganacsade ahaa haddii aabbayaal la soo qaadayna intaasaan ka idhi ina cambaashe waa jenaraal ay somalilan ku dhaarato oo aanu aad iyo aad ugu kalsoonnahay waxa uu u soo qabtay ummadda reer somalilanna qof kastaa meesha uu joogo iyo meel kastoo uu joogo lagu xusuusan doono inuu yahay halyey qaran marnaba aan ka bixi doonin maskaxda dadka ummadda reer somalilan ee saxda ah ma ihi dadka deegaanka ka soo jeeda ee gobolka sool iyo gobollada kale ee dalka somalilan wax ka dega waxaan leeyahay qof kasta oo bini aadani jacayl baan idiin hayaa wanaag baan idiin hayaa xumaan lama jecli waxaan isleeyahay dagaalku inuu sii socdo cid faa'iido ku gaadhaysaa ma jirto shalayto garaadadu waxay lahaayeen ciidamada magaalada ha laga saaro magaalada madaxweynuhu ciidankii uu ka saaray waxaa laydinka doonayaa in aan si gobonnimo leh u wada hadallo oo aan dagaalku sii socon waxaan kaloo halkan rabnaa inaan runtii farriin u diro xisbiga qaranka waddani oo uu ka tirsanaa cabdirasaaq khaliif in ay caddaymo dheeraada looga baahan yahay inay fakerkan ku taageersan yihiin iyo in ay go'aan cad ka qaataan maadaama uu dhammaan lumiyey shuruudihii qarannimo ee uu xilka jamhuuriyadda somalilan ugu hayay golaha wakiiladana waataan hore ugu sheegay iyagana intaa in leeg baa laga rabaa ummadda reer somalilanna waxaan leeyahay waxaynu isku ognahay degenaansho wada shaqayn isjacayl istixgelin mar kasta dhibi somalilan waa ku imaanaysa dhibtaa waxaynu rabnaa inaynu faker iyo wada jir iyo caqli iyo wax wada lahaansho iyo wada tashi inaynu kaga baxno ayaa ummadda reer somalilan loo baahanyay wakhtigan oo kalena waa wakhtigii loo midoobi lahaa sidii xal loo heli lahaa dhammaanteen haddaynu xisbiya nahay haddaynu urura nahay haddaynu gobollo nahay iyo haddaynu degmooyin nahayba qof kasta oo muwaadina oo reer somalilanna contributionkiisa oo wanaagsan baa loo baahanyay waxaanu idinka filaaba waa wanaag iyo wada shaqayn iyo inaynu isku tiirsanaanno guul baan idiin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu